maxkamadda ugu sareysa ee dalka Kenya ee Supreme Court ayaa daaqada ka tuurtay go'aan ay horey u soo saartay maxkamadda racfaanka oo loogu ogolaanayay ardayda muslimiinta inay xijaabka u xiran karaan iskuulada. xukunka maxkamadda ayay garsoorayaashu ku sheegeen in iskuul waliba laga doonayo inuu yeesho shuruuc asaga u gaar ah oo uu meel ku dhigan karo arrimihiisa. todobadii bishii Sebtembar 2016 ayaa maxkamaddu racfaanka u ogolaatay ardayda muslimiinta inay xijaabka u xiran karaan iskuulada dalka. ilaahay wuxuu leeyahay sidaas aan lagu yaqaanaa gabdhaha muslimaadka haweenka muslimaadka inay korkaan xijaabka ay ku dadaan oo aan la dhibin wa kaana Allahu ghafuur rahiima. aayadaas maanta la soo degay. garsoorayaasha xukunkaasi riday ayaa waxaa ka mid ahaa Philip Wake, Roslyn Nambuyi iyo Patrick Kiaga. hase ahaatee arrinkan ayaa waxaa ka soo horjeestay golaha muslimiinta ee dalkani Kenya ee loo soo gaabsho Subkem ayagoona sheegay in arrinkan uu keeni karo kala qaybsanaan. jilbaab ma aragtay nin ilaahay diintiisa waxba aan ka garanaynin intuu waraaqsa u jiido u yiraahdo maanta lama ogolaana xijaabka inay meesha ku xirtaan. ma xijaabka waxa ka mid yahay jirka maqaarka gabdhaha muslimaadka ayuu ka mid yahay. harigooda markaad harigooda u tagto ayaga aad disho yaa xijaabka marka ayada aad u tagi yaa daa'ima maarad u diidi kartaa. waa dhiigooda, waa maqaarkooda, waa harigooda, waa naftooda. ilaahayna saasuu yidhi subxaana wa tacaala. waa aayadda 58 ee suuradda Axzaab la yiraahdo iyo ka mid tahay ay 114 suuradeed ee quraanka aayad ku jirto suuradda la yiraahdo suuratul Axzaab aayadda 58 yu ilaahay subxaana wa tacaala kaga hadlay. halka ha ka raacdaan gaalada aan maartay xijaabka u maleynayaan wax meelahan waa kitaabka quraanka munazzalka ilaahay soo dejiyay aayad kamid ah iyo xijaabka kamid yahay. marka mid lagu khamaari kara ma aha, mid looga heebaysanahayna ma aha, mid laga yeelahay ma aha. ardaasha iyo dadka xuduud ilaahay aan waxba ka garanaynin inay fara ku soo taagaan. midaas muslimiinta yaan u sheegaya. maxaan muslimiintu ku sheegaya oo kale marka hore inay naftooda ay ka dhowraan meelaha khatarta diintooda ka soo gelayso. meelaha khatarta diintooda ka soo gelay inay ka dhowrsadaan. meelo badan ma ah la daaci baahi ma jirto intaad gabadhaada qaado aad u geyso meel ma aragtay kaniisad ay hogaaminayso oo ma aragtay ilaahay diintiisa islaamkaba ka soo horjeeda haddaad gabadhaada u geyso waxay ku qabsadaan meesha adiga muslimka mas'uulka adiga muslimka yaa mas'uulka wixii dhaawaco diinta soo gaarana adiga muslimka yaa maaragtay yaa mas'uulka. marka muslimiinta waxaan uga digaynaa ilmahooda inay ka ilaaliyaan iskuulada aan ku dhisan magaca diimaha baadilka la asal Allah fi maaragtay fi sharci Allah subhanahu wa ta'ala aan ku lahayn inay ilmahooda ka ilaaliyaan iskuulada muslimiin oo maaragtay oo xijaabkii iyo diintii iyo dhaqankii ay buuxaan yaa tooran. si kastaba ahaatee xijaabka ayaa ah mid waajib ku ah hablaha muslimiinta inay xirtaan sida Allah subxaanahu wa ta'ala oo inuu sheegay quraankiisa kariimka. Bishaar Ahmed Daqane, Honkebel TV, Garissa.